sheeko gaaban ma sariirtay guursatay mise aniga? Waa wiil iyo gabadh isku fiican. Waxay wada socdeen in muddo ah. Waxay iskaga warhayaan daqiiqad. Waxaa ka dhaxeeya xidhiidh mustaqbal oo qoto dheer. Waxay rabaan inay wadaagaan nolosha qaybaheeda kala duwan. Inay carruuro isku yeeshaan. Isku dulgaboobaan. Islana qaataan inta cimrigooda ka hadhay. Waxay galeen axdi ku salaysan riyo ay maankooda ku sawirteen. Waa galab casar ah. Waxaa cirka ku gadaaman daruuro ay falaadhaha cadceedu ka soo dhex dusayaan. Waxay isugu yimaadeen goob ka mid ah goobaha lagu ballamo. Ujeeddada ay isugu yimaadeen waxay ahayd inay xaqiijiyaan himiladooda. Wadahadal dheer kadib, waxay isla afgarteen in ay gaadhay xilligii ay guri wada yagleelan lahaayeen. Waxay ku soo afmeereen in sida ugu dhaqsaha badan ay hawsha u galaan iyaga oo la socodsiinaya waalidoontooda iyo xubnaha kale ee ay qarabada yihiin. Inantu way ka warhaysaa xaalka inanka iyo guud ahaan xaaladda dalka labadaba. Waxay la haystaa wadciga waddanka oo shaqo-la'aan baahsani ka jirto. Goobaha loo shaqo tagaa way iska kooban yihiin. Weliba inta badan cidda ka hawlgashaa waa intay cudud adagi ka dambayso. Sidaa daraaddeed, waxay ku ogashahay in ay ku raacdo faro madhnaanta yarka ay iscalman doonaan. Wiilku wuxuu u sheegay in uu jiro walaalkii oo Yurub jooga oo u ballanqaaday in uu biilkiisa ka adkaan doono intuu shaqo ka helayo. Durtaba waxay gaadhay maalintii meherku dhacayay. Waxaa shalay oo kale yimi walaalkii si uu uga soo qayb galo madasha meherku ka dhacayo. Sida caadada ah waxay xaafadaha xididay isweydaarsadeen hadallo hoos ka tuur ah iyo kaftan bilaa turxaan ah. Waxaa loo soo agaasimay si aad u saraysa. Waxayna u dhacday sidii ugu fiicnayd. Sida caadada inoo ah. Waxaa xilliga meherka iyo aqalgalka loo dhexaysiiyaa muddo kooban. Wiilka culays ayaa saaran. Nasiib wanaag. Wuxuu isku halaynayaa yarta ay iscalmadeen oo si walba ku ogol. Waxay inantii ku kulmeen xaafad si ay uga wada hadlaan arrinta aqalgalka ee hortaal. Waxaa meeshii kaga soo baxay hadallo lama filaan ah. Marnaba maankiisa muu soo gashan inay sidaas ula kalaami doonto. Waxaa ka soo yeedhay weedho dhabarjab ku noqday. Waxaa markiiba ku soo ururay niyad jab wejigiisii ku bedelay in ka yar daqiiqad aniga haddii aan arooska la iigu dhigayn meel heblaayo. Oo aanay ka soo qayb galeen dad tiro badan oo rag iyo dumarba isugu jira. Oo aan habeenka la iga tumayn. Ha i hawaysan. Anigu adduunyadaba habeenkaas oo qudha ayaan ka leeyahay. Sidaa daraaddeed, si beri subax hablaha oo dhan iiga sheekaystaan waa in kharash badan igu baxaa. Weliba waxay intaas ugu dartay. Xagga gurigana. Haddii aan fadhiga ugu qaalisan fadhiyada la ii goglayn. Habeenkiina aanad igula seexanayn hurdo dhulka ka kacsan 2 mitir. Qolka cuntadana aan qalabkeedii agabaynayn. Ha i hawaysan. Hablaha lagu aan saaxiibka nahay ayaa ii soo booqanaya. Haddii ay iigu imaadaan guri aanu adduun badan gelin. Sow igu caayi maayaan. Ha igu ceebayn meesha xabiibi. Wuxuu isku dayay inuu u caqli celiyo. Wuxuu xasuusiyey inay markii hore ku ogolayd in ay hal qol fadhi, hurdo iyo madbakh ba ka dhigtaan. Wuxuu soo xasuusiyey inay ku tasbiixsan jirtay inay caw maalinna ku wada seexan doonaan. Inay qadi doonaan maalinna dhargi doonaan. Balse ay ku dadaali doonaan kobcinta jacaylkooda, korinta ubadkooda iyo adkayna xidhiidhkooda. Hase yeeshee, dhaba jalaq umaysiin calaalkiisii. Mararka qaar waxay ugu warcelinaysay inay kaftan ka ahayd. Halka ay marar kalena dafiraysay balamahay soo dhigteen. Wiilkii talo ayaa ku caddaatay. Wuxuu arrintii la socodsiiyey walaalkii. Isaguna si uu u ilaaliyo mooralkiisa wuxuu u ballanqaaday inuu kafayn doono qarashaadka ku baxa agabaynta guriga inta karaankiisa. Wixii kalena ay amaahan doonaan. Wuxuu u sheegay in maadaama oo xilligii meherka uu ka baxay qarash tiro badan sida gabaati. Yarad hortii. In aanu gabadha eryin ee uu dalabkeeda aqbalo. Waxaa arrin la yaab leh ah in hablaha Soomaaliyeed aanay badankoodu lahayn caqli ku filan oo ay ku qiimeeyaan waaqica dalka ka jira. Waxay si kama u dalbadaan in guriga lagu agabeeyo alaabo qaali ah. Sidoo kale, waxay ku andacoodaan in habeenka arooska qarash adag ku baxo. Ma yaqaanaan adduun lama hayo. Maankooda ma gasho in ay lacagtu iska iman doonto. Waxa ka sii caqli daran ragga Soomaaliyeed. Waxay iska yeelaan dalab kasta oo ay gabadhu ka dalbato. Iyaga oo ku sababaynaya in qarash hore kaga soo baxay xilligii meherka. Guud ahaan, waxa iyaduna wax laga xumaado ah in aanu midkoodna fahansanayn sababta saxda ah ee la isku guursado. Halkii ay ahayd inuu guurku ku salaysnaado iskaabis iyo isdhamaystirid. Ayaa guurka Soomaaliyeed wuxuu ku salaysan yahay daba ka warwar xagga ragga ah iyo lacag doon joogta ah oo xagga dumarka. Waxba yaanan hadal idinku daalinine arooskii wuxuu u dhacay siday inantu u rabtay. Gurigiina waxaa loo agabeeyey siday u dalbatay. Sariirtu waa tii u qaalisanayd. Fadhiguna ka sii daran. Cuntadana show agab ugaarah bay leedahay. Siduu gurigii u nuurayo kaalay arag. Indhihii arkaa way ku nuursanayaan. Waxaa arooskii ka soo wareegay muddo 2 toddobaad ah. Wiilkii habeen kasta wuxuu seexdaa qolka fadhiga. Qolkii hurdadana wuxuu u daayay inantii. Uma dhowaado. Kama ag wareego xitaa kadinka qolka hurdada ma furo. Markuu subaxii hurdada ka kaco si toos ah ayuu uga baxaa guriga. Markuu habeenkii soo hoydana wuxuu istuuraa fadhiga dushiisa. Inantii sariirtii ku cidlootay. Waxay mar kasta weydiisaa waxa ku dhacay yarka ay iscalmadeen. Isaguna hadalka uu soo koobaa isaga oo ugu warceliya in aanay wax dhibaato ah jirin. Waxay isku daydaa in ay ogaato sababta dhabta ah ee uu dayrada uga noqday balse kuma guulaysato. Waxay go'aan ku gaadhay in ay u samirto afkeedana ilaashato. Habeenkii hurdo malado. Subaxiina gurigu waa ku cidlo. Waxay keligeed dhex meertaa qolaalka gurigu ka kooban yahay. Samirkii iyo dulqaadkii ayaa ka dhammaaday.
aamusnaanteedii waxay gaadhay inuu xadkii loogu talagalay dhaafo. waxay go'aansatay in ay cabasho u dirto reerkoodii iyo tolkay ka soo jeeday labadaba. waxay u sheegtay siday wax u jiraan markay istidhaahdo wax weydiina uu ugu warceliyo in aanay waxba jirin. dabadeed tolkii xagga inantu waxay wargeliyeen tolkii xagga inanka iyaga oo raba in lala garnaqsado. waxay ku doodayaan in inantii uu inankoodu la aqalgalay uu ula dhaqmay si bani'aadamnimada ka baxsan, halka ay ahayd inuu ula dhaqmo si ay milgo iyo sharafi ku dheehan tahay. waxaa isku yimi odayaashii, wiilkiina waa loo yeedhay. waxaa la weydiiyey sababta ay inantu uga cabanayso. cabbaar ayuu yara aamusay. intii madasha fadhiday dhammaantood isaga ayay indhaha ku gubayaan. waxay ka sugayaan jawaab macquul ah. haddii kale waxay odayaasha ergada u ah dhanka inantu u soo milicsanayaan xaal afeed iyo xaal xooleed labadaba. ileen nin gartiisa soo akhristay ayuu ahaayee. wuxuu mar keliya la soo booday hadal deganaansho iyo ka baaraan degis badani ka muuqato. wuxuuna yidhi inanta guurka ka hor si fiican ayaan isaga war haynay. waxaa la gaadhay xilligii meherkii. alle mahadii ha uga sugnaato wuxuu u dhacay si meeqaam sare leh. ilaa wakhtigaa howluhu sida ugu fiican bay u socdeen. waxay mushkiladdu bilaabantay xilligii arooska. halkay aniga ila tashan lahayd ayay la soo tashatay asxaabteeda iyo qaybo ka mid ah qaraabadeeda. iyada oo ka war haysa jeebkayga iyo ka walaalkay labadaba. ayay dalbatay in loo dhigo aroos qarash badani ku baxayo. iyo in guriga loogu agabeeyo alaab qaaliya. waxaan isku dayay in aan u caqli celiyo, laakiin kuma guulaysan. aniga oo tixgelinaya aqalka cusub ee aannu yegleelannay ayaan agabka guriga u yaalla u soo amaahannay. waxa ugu qaalisanaa sariirta oo 2 mitir dhulka ka kacsan. kaas iyada ayaa si gaar ah u dooratay. run ahaantiina qiimaheedu u sarreeyey. markaan soo amaahday kadib ee qolka hurdada lagu goglay ayaan ku idhi ku seexo adigu kelidaa. haddaba aan su'aal idin weydiiyo, inanta ma sariirta guursatay mise aniga? waxaa intaas ii dheer, suuqii ma gaadhi karo. meheradihii aan alaabta ka soo amaahday ayaa sakad walba iga daydayanaya. wuxuu intaas ku sii daray, anigu jidbaxsha ayaan ahay. garnaqsigayguna waa mid adag oo ceeb la'aan ah. intii aanan madashan imaan ka hor ayaan hore u soo naqday. odayaashii hadalba uu ka soo bixi waayey waayo meesha waxba uguma bannaana. waxay u garaabeen sida wanaagsan ee uu gartiisa u akhristay. waxay go'aan ku gaadheen in ay gabadha u caqli celin doonaan. daynta lagu yeeshayna ay ka gudi bixin doonaan. wixii intaa ka dambeeyana uu gabadha ula dhaqmo sidii xaaskeeda oo kale. si la mid ah sida ay iyadana ugu sheegi doonaan inay ula dhaqanto sidii ninkeeda oo kale. waxaa qoray Axmed Cali Diiriye. halkan kala soco buugaag dhegaysi ah. nagu soo biir oo ka mid noqo dadka nagu xidhan. mahadsanid.